caawinta dadka shacabka ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ma ahan mid ay ka daalaan. Halkan waa deegaanka Ceel Jaalle oo qiyaas ahaan u jira beledweyn 5 kiiloomitir. Waa goob ay deegaansadeen dadkii ka barakacay Fatahaada wabiga Shabe. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan guutada 5aad qaybta 27aad ayaa maalintii 11aad biyo dhaamin ka wada halkani maadaama halkan uu ku oolin ceelbiyood. ciidamada qalabka sida ayaa u taagan ilaalinta naftooda iyo badbaadinta dhiigooda. danyartii biyo dhaaminta loo sameeyay oo aan waraysi la yeelanay ayaa inoo sharaxay sida ay ugu soo gurmadeen ciidanka qalabka sida gaar ahaan guutada 5aad. annaga xoogga dalka Soomaaliyeed wiilashanada ayaa maanta ilaahay baa naf badbaadiyo bilaadan ma badbaadiyo ilaahay baa noogu soo dhiibay iyagana waa u mahadnaqaynaa. maanta iyagaana caawiyay oo biyana siiyay dariiqyahan ku babaqtin lahayn nafta ilaahay baa iska leh laakiin intii ka sokaysa maanta xoogga dalka ayaan mahad u gaartay maanta mahad ugu naqaynaa dadkiina way gaari waayeen ilaahay wuxuu soo qaadaa ilaahay wiilashanadii aan caawiyay militariga oo dalka xoogga Soomaaliyeed oo qaas ahaan gobolka Hiiraan jooga magaalada Beledweyne waa noo qabteen biyo waa noo keenay ilaana daalacana inkastoo dadku ka farbadayo say wax u gaaraan u gaarsiinayeen dadkan waa dareemi kartaan aqliya leedihiin hal booyada waay dadka kale waa subtaan biyo leeyli subtaan umadu $2 lagu subtaa si lagu helaba waa soo qayn xaasaddigeen waa dad Soomaaliyeed oo qolo kasta iska leh afarta xaafadood baa ka soo qaxin inkastoo loo kala badan yahay xaafadaha qaar aan waxba ku harinba wax noo yimid oon aragnay oo baahideena wax ka daboolay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ka jira guutada 10aad guutada 5aad ayagaan hadda nala jooga biyayna siiyaan biyo waana ku mahadsan yihiin waanu mahadnaqaynaa nafteenna iyo caruurteenna iyo haweenkeena nimanka badbaadiyay nimankaas waay. dhamme Maxamed Ibraahim Daawud waa taliyaha ururka 39aad guutada 5aad qaybta 27aad oo dareen wadaninimo leh uu ka muuqday ayaa sharaxaad naga siiyay sida ay ugu dhiiradeen inay biyo dhaamin u sameeyaan dadkan ka soo barakacay Fatahaada wabiga Shabe iyo waliba goobaha ay biyaha geeyaan. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay wadeen hawsha biyaha aad ay si habsamo u socotaa waana sii wadi doonaa. waxaa arkaysaan dadkan dhalinyarada ah oo yiriiska biyihii ay soo qaxiyeen inaan mar walba aan la daba taaganahay biyo annaga waxaan awoodnana ka ciidan ahaan ama ka talis ahaan wixii aan awoodnana waa ku kaalmeynana waxaana jecelnahay inay biyahan maalin kasta ay gaaraan maalintii ilaa iyo 3 booyadood camal shubnaa 3 booyadood waxay qaataa ilaa iyo 60 fuusto. Nuur Maxamed Cali warbaahinta codka ciidamada qalabka sida magaalada Beledweyne.